Subah Wanaksan，早上好。现在我们继续索马里语课第一课的第8部分。前面我们已经学了单词，现在我们学习对话。Shopping 购物。Eunice sees that Bill has some shopping. Eunice 看到 Bill 买了一些东西。下面是对话，我们听录音吧。dukaanka ma tagtay haa waan tegey caleen shaah ma ka keentay haa caleen shaah iyo caano iyo sonkorba waan ka keenay wax kale ma ka keentay maya laibareerigase waan tegey buugna waan ka keenay waa yahay iminka guriga tag koob shaah ah samee buuggiina akhri waa yahay nabadgelyo nabadgelyo课文的意思讲解我们放到下一节课。我们先来学习一点语音知识。接下来我们学习索马里语的元音。索马里的元音有短元音 r、a、e、o、u， 长元音就是 r、a、e、o、u。我们听几个例子。agagaar agagaar baaq baaq way keentay way keentay gees gees jooji jooji nadiifi nadiifi ninkii duul duul wuu baxay那我们这节课就上到这，下节课见吧。